safar aan ka bilownay Addis Ababa jigjiga dirna baan ku tagnay magaalo aad xamar uga eg oo aad u qurux badan bay ahayd boora baan ku qabanay gabiley baan ku qabanay hargeysa ku qabanay berberaan ku soo qabanay sheekh baan marnay burcaan ku qabanay laascaanood baan ku qabanay garow baan ku qabanay boosa qardhay iyo boosaasan aadin ku qabanay kadib baan haddana dib intaan ugu soo noqonay garow wax si aad ilaa iyo gaalkacyo inta gaari baan ku soconay laakiin 10 sano soo socda lololada ugu faraha badan waxa ugu badan ay kala duwanaan doonaan afkaar bay noqon doontaa meelihii waxay ahayd eventyadan ku qabanay su'aalaha ugu adagna la weydiinay bismillahir rahmaanir rahiim aad baan idin salaamayaa dhamaantiin meel wada joogtaan muuqaalkan uu ka duwan yahay muuqaaladii channelka aad uga barateen iyo mawduucdii aan ka hadli jiray si gaar ah mawduucan wuxuu ama muuqaalkan ay dhahday wuxuu ugu saabsan yahay su'aal dad kala duwan iyo xiliyo kala duwan iyo xaalado kala duwan lagu weydiiyay oo ahayd safarkii 3 bilood ee aad baxday aad buuga garaatay intaadan guursan aad ku gaarsiinaysay bulshada iyo deegaamada kala duwan maxaad ka soo baratay maxaa ku soo baxay runtii wuxuu ahaa safar 3 bilood wax badan aan noloshayda oo casharro fara badan aan soo kororsaday casharada muuqaal kale aan kaga sheekeyn doonaa iga baxay safarka iyo waxaan ka soo bartay waxaan in ka badan 11 dal ayaan safarka ku qaadanay laakiin si gaar waxaan rabaa muuqaalkan inaan uga warramo dad badan ay weydiinayeen ma aanan rabin inaan dheereeyo muuqaalka maxaa iga baxay safarkii aan ku maray dhulka Soomaalida safar iga yar duwan buu ahaa dhowr jeer hore aan dhulkii u tagay waxaan maleynayaa 91dii sidaan dalka uga soo baxnay waxaan ku noqday 2019 oo book fairkii Muqdisho book fair ka qayb galay 4 cishaan joogay oraan ka soo noqday safarkii xigay wuxuu ahaa magaalada Jigjiga oo Somali Youth Summit lagu qabtay oo isna 4 maalmood aan joogay oo dib uga soo noqday anigoon magaalo kala marin ayaa 2011 bishii October aakhirkeedii meelaha aan ku tagay dhulka Soomaalida safar aan ka bilownay Addis Ababa marka laga tago deegaamada Soomaalida waxaa tidhaahdaa Jigjiga dirna baan ku tagnay dirna baan ka soo noqonay safarkaan ka soo bilownay dirna baan ka soo bilownay waa Jigjigaan u iman doonaa marka hore Jigjigaan book fair ku qabanay laakiin dirna baan aadnay dirna 3 saacadood meelahaas aan joogay runtii magaalo aad xamar uga eg oo aad u qurux badan bay ahayd in badan siyaabooyin kala duwan hadaad eegto magaalo aad dhulka Soomaalida intaan maray magaalada kaliya aan soo oran karayo dhul Soomaaliyada oo xamar aad uga eg waxay ahayd dirdhabo ilaa Jigjiga sidaasaan u soo soconay wajaale xaggaasaan ka soo galnay boora baan ku qabanay gabiley baan ku qabanay hargeysa ku qabanay berberaan ku soo qabanay book fairkii bandhigi buuga sidaasaan u soconay sheekh baan marnay burcaan ku qabanay laascaanood baan ku qabanay garow baan ku qabanay boosa qardhay iyo boosaasan aadin ku qabanay kadib baan haddana dib intaan ugu soo noqonay garow wax si aad ilaa iyo gaalkacyo inta gaari baan ku soconay waa muddadii waxaan isleeyahay safarku wuxuu kaga duwanaa waxay magaalo walba maalin iyo labaan joogeen oo muddo yaroo bil iyo badh gudaheeda ayaan in ka badan 20 magaalood oo Soomaaliyeed waaweyn aan cagta marnay in ka badan 100 tuulo iyo maaragtay magaalo yar yar ah oo dhul Soomaaliyadana cagtan sii marnay runtii safarka degdega waa laga yaabaa in fadhi fara badan magaalo walba si aad ugu kuur gasho inaad loo baahnaa oo qaybtan baan helin waxaan u maleynayaa magaalooyinkan wiiga ku dhawaad aan joogay waxay ahayd Muqdisho iyo Hargeysa iyo Jigjiga inta kale waxa weeye degdeg baan ku soconay mid ugu badan 2 maalmood joognay laakiin waxaan nasiib u helay mar walba inaan la sheekaysto inta nuqbada ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursad ii siiyay inaan macallimiinta jaamacadaha kuwa secondaryada ganacsatada waaweyn culimada dadka biladayaha bulshada u ah ayaan meel walba kula kulmay oo si fudud oo in a nutshell ayaa la ii siinayo xogta
magaalada iyo baahida marba taalla oo magaalo markaad galayso waxaad u baahan tahay inaad ogaatid ama dad la hadlayso wad wax soo bandhigayso waxaad u baahan tahay inaad xog hayso magaalada baahiyaha ugu badan waa maxay waayo dhalinyaro waxa ku imanaya kumanaan dhalinyaro ku imanaya ku dhawaad 40 kun 50 kun ilaa 60 kun oo dhalinyaro ayaan bisha ay barka gudaheeda aan u helay fursad inaan kula hadalno anigii ustaad warsame oo halkan ka salaamayo marka wuxuu ahaa safar yaro muddo yaro kooban oo wax fara badan oo processing u baahnaa magaalo marka yiraahdo maxaa ku baxay wali waxaan lahaa waa process garanaya yani wali waan shiidaya dheefshiidkii maskaxeed buu maraya laakiin qodobada mar walba ii soo baxayay dhowr baan u kala qaadayaa hore waxa weeye dhalinyarada marka la eego dabcan waad garanaysaa bulshadeena waxa ugu badan waxa weeye waa dhalinyaro waxa ii soo baxaysay mar walba baahida aqoomeed ee bulshada taala nasiib xumo dadkii wax soo bartay ee aqoonta wax soo bartay ee maaragtay dunida galbeedka dunida muslimiinta ee Afrikada kale meelaha kale dhulka wax ku soo bartay in badan oo kamid ah markay dhulka ku soo noqdeen ama jaamacada galeen koodo in yaro percentage aad u yar baa jaamacada dhiga kuwana maada yaro ay buuk akhriyaan ay inta badan dhigaan in badan oo kamid ah ama ganacsi iyo hay'ado loo shaqeeyo iyo Allah musta'aan siyaasad ay galaan laakiin dhalinyarada meelaha la isugu yimaado waxaad moodaysaa arkaysaa markaad waxyaabaha arkay waxa weeye flyer baad dejinaysaa dadna muddo yar oo kooban baad arkaysaa kumanaan dhalinyaro meel isugu yimid baahi aqoomeed ayaan aad u tabay inay aan u dareemayay idhaahde inay dhalinyarada ka maqan tahay oo aan isleeyahay halka fursad waxa ku jirta dadka wax soo bartay fikradda xambaarsan ee doonaya jiilka Soomaalida inay saameyn ku yeeshaan aan doonayno dadka bulsho qofka Soomaaliga inuu baahan inuu soo saarno dadka inuu ku baraarugsanay doonaya isbedel fursad baa halka ugu banaan inay jaamacadaha secondaryada meelaha dhalinyarada isugu yimaadaan in kelmado dhiirigelina oo noloshooda wax ka bedelaya fikirkooda wax ka bedelaya cilaaqada diiniga iyo tan bulshada ay leeyihiinba wax weyn ka bedelaya in lagu kordhin karayo baahida labaad ee aad ugu muuqato waxay ahayd baahi qudwo oo ilaa 2019 markii ugu horeysay dhulku noqday aan soo arkay bulshadeena 70% in ka badan waxa lagu sheegay inay tahay dhalinyaro 30 sano ka yar inta bulshada biladayaha ah inta elite-ka ah haday noqoto dadka ducaada ah culimada diiniga haday noqoto siyaasiyiinta haday noqoto ganacsadayaasha haday noqoto aqoon-yahanka kale waa in badidood waa dad konton iyo wax ka weyn dhalinyaraduna waa 30 sidii bulshadeenu badan tahay waa 30 iyo wax ka yar halka waxa ku jira 20 sano oo gaab ah oo qof kasta aan isleeyahay baahi dhalinyarada waxay qabaan baahi ah inay arkaan dad 30 jira 40 jira 50 ka yar oo ducaad ah aqoon-yahana ah aragti xambaarsan oo dhalinyarada isirkooda iyo ahaanshahooda iyo isu soo dhaweyntooda iyo in la tusi karayo dunida halka ay beegsanayso iyo halka loo socdo caalamka in dhalinyarada in bulshada la hiifo la yiraahdo maxay u arki laayihiin waxa anagu aan arkayno maaha in la yiraahdo waxa way qofku ka soo qaad bulshada badideeda waxa way qofku marka uu dhulka jiifo oo uu qofku fayhada ma oran karaysi soo kacdigoo taagan waxaad u baahan tahay inaad u fuursatid gacanta soo qabatid aad soo kicisid si uu kula socdo laakiin waxaad moodaa in badan oo kamid in leeyahay dhalinyarada iyo bulshada guud ahaanba in intii wax fahantay dunida halkay u socotay arkayay inay canaanun kala dulacayaan maxaad u kicil aadiin maxaa sidan u sameyn lahayd tan iyo 1940skii ilaa 1930 waxaan leeyahay 1940meeyadii 50meeyadii intii gobonimada gabayadii la tirinayay waqtiga hadaad fiirsid ilaa iyo hadda maca ducaadii maca aqoon-yahankii maca siyaasiyiinta waxay moodaa bulshada inay canaananayaan laakiin waxa loo baahan dadka in loo tago meesha ay joogaan lagu tago wax loo sheego la tuso salaanka la soo saaro nolosha meesha u socoto iyo waxa looga baahan yahay iyo in loo tusaaleeyo oo loo hawaalo waramay u baahan marka fursad baa halka ka banaan dad ducaada oo dhalinyaro oo fikir xambaarsan inay bulshada u soo baxdo afkaar fara badan baa bulshada ku dhex lagdamaysa oo bulshada Soomaalida waxa kaliya ay isku hayaan ama ay isku hayin jireen bariga hore reernimada yahay way waxa kaliya ku kala duwan yihiin bay ahayd laakiin 10 sano soo socda loolanada ugu faraha badan waxa ugu badan ay kala duwanaan doonaan afkaar bay noqon doontaa way afkaar far badan oo doola
oo kala duwan oo mid caqadiya mid fikriya mid jinsiya waxyaabo badan oo fara badan baa soo socda oo bulshadeena kusoo fool leh marka doorkaana wax ii bannaan oo aan isleeyahay bulshada ka bannaanoo baahi loo qabo ayaa ii muuqatay ta kale ii muuqatay waxay ahayd gaab xirfadeed jaamacadaha aqoonta ay bixinayaan iyo suuqa baahida taalla aad bay gaab weyn baa ii muuqday inuu ku dhex jiro oo maqaaxidaad soo fadhiisato iyo hoteelkaad degto iyo institutionka aad tagta booqataba waxaad arkaysa inay ka shaqaynayaan dad ama Ethiopia ka yimi ama Kenya ka yimi ama Uganda ka yimi inay techniciankii iyo waxyaabihii loo baahnaa oo skillskii the hard skillska inay ay buuxinayaan dadka laakiin dhallinyaradeenina ay ka wada cabanayaan shaqo la'aan ana waxa keentay baad leedahay habka bulshadeenu loo soo ababay ahayd qof walba inuu jaamacad un raacday noloshana sidaa ma ahaynteeda badan Yurub waxaan soo maray Jarmalka iyo Switzerland iyo wadamada la midka iyo Austria iyo bulshada qofku markuu high school ka soo baxo waa la kala qaybiyaa qofna jaamacad buu aadaa qofna wuxuu aadaa skillska iyo inuu maartay xirfado uu soo barto uu ku shaqeeyo way bulshadii baahida is buuxinaysaa marka baahidana way ii muuqatay oo inay soo baxaan institutionno skillska gaabka buuxiya baahida suuqa taalla iyo jaamacadaha gaabka u dhaxeeya waxa ay bixinayaan oo inta badan theory isaga badan oo skills fara badan aan lahayn marka laga tago medical iyo meel waxyaabo la mid ah in gaabka institutionno buuxiya ay soo baxaan waayo hadda dhalinyaradu in badan oo kamid ah wax iska sugayaan un marka qofku xafiiskii bulshada xafiiska ma wada shaqeyn karayso dhalinyaradu sanadkii 5,000 in ka badan 10,000 oo dhalinyaro jaamacadaha deegaamada Soomaalida ka baxda kulli xafiiska ma wada shaqeyn karayaan baahiyo ka badan baynu leenahay oo ay tahay in la buuxiyo waxyaabaha kale aan arkayay runtii rajada iyo quruxda miidhan leh ay kamid ahayd marka laga tago dhalinyarada iyo jiilka dhan inoo soo kacaya wax bartay in nabadu watan soo sheegay dirdhabo ilaa laga soo gaadhay gaalkacyo gaari baan ku soconay inta aan soconay meel aan baqdin fara badan iyo istaajiyo dabcan waad arkaysaa oo tusaale kale wajaale waa xad gawaaridu waa ka soo degaysaa waxaad waa laga soo degaa markaad halkan tukaraqi aagan aad soo gaadho garow aad galayso iyaduna waa laga soo degaya oo ciidan baa fadhiya labada meelood marka laga soo tago meel dhifa oo xariga lagu wadada ay xarig ku yiri xidhan yahay oo baabuurku markuu soo dhawaado marka lidaa aqoonsada gaari caadi inaad tihiin oo ciidan iyo wax aan ahayn xariga lidin dajinaya kadib waa dhaafaysan inta dhulaan soconay ku dhawaad 2,000 kilomitir ku dhawaad oo gaari ku soconay runtii wax culaysa iyo wax walwala iyo wax baqdina qof aan arkayna ma jirto dabcan waxay la mid ahayd safar la mid ah jira oo bilaha bishii ku xigtay aan galnay oo aan ka safarnay anigii warsame Belgium kan gaari ka qaadanay ilaa iyo Qordoba iyo Qarnaada South of Spain baan tagnay dabcan marka dalalkaas aad marayso waa isku wada furan yihiin kada Francisco kala markaa mareynay intii aan wajaale iyo tukaraq markaan mareynay aan la kulmayno ma kula kulmayno waa Francisco xuduudda Francisco iyo Spain laga galay waana la istaajiyay oo gaari ka soo degay gaari waa la baaray deetana gaarigiina ma dib iska noqonay markii waxna la ka waayna waa gudubnay waa normal oo xuduudaha waa normal ta marka nabad fara badan baa muuqatay halkaas sidoo kale waxa ii muuqday dhul baaxad leh oo aad u ballaaran oo aad cidlo ah markaad Yurub iyo Mareykanka dhexdiisa aad ku safrayso oo gaari wadato waxaad arkaysaa in meel walba dad yar oo kooban ay degan yihiin oo masaaxo weyn oo cidla aadan arkin in beero iyo maartay hawd iyo ay tahay mooyaan laakiin waxaad arkaysaa dhul fara badan oo saxara ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka u dhaxeeya oo aan cidna aan deganin oo reero on maybe ku magacaaban dhulka waxba laga beeri karayaa dhul adigu waxa noo soo baxday runtii baaxad leh oo cidla ah oo waxa la isku haysta anigu ma garanaysin mararka qaarkood dhulku waa cidlo way nagu filayaan saddex magaalo afar magaalo Soomaalida kamid ah Soomaalida oo wada deeqda laakiin dhulka faraha badan aad buu u diyaayay beera laga sameyn karaya waxyaabaha aad ka quruxda badan waxay ahayd markaad magaalooyinka xeebaha oo kala soo marto nasiib waxyaabaha u yeesho waxa kamid aha in badan oo kamid laga yaabay qaarkiin u yeelateen inaan boosaaso berber markaan joognay xeebta kalluun fresh aad ku cunayso oo boosaaso markaan joognay xeebta kalluun fresh aad ku cunayso oo xamar sidoo kale xeebta adigoo jooga liida agteeda
kalluun fresh aad ku cunayso runtii waa nimcooyinka aynu haysanay ka mid tahay laakiin de waxaa loo baahan yahay waatuu lahaa dhoodaan caqli gacalkii toosaa fakera nolosha tulmoon kan baa loo baahan yahay la toosiyo reer galbeedku iyagoon dhul lahayn waxna haysan ayay fakereen wax ka soo saarteen markaan hadda Spain oo kale iyo Faransiiskan marayni beeraha iyo dhulka sida isku haystaan wad yaabaysaa Belgiumka Allahu musta'an Holland subxaan Allah yani sida loo beertay dhulka iyo waxa laga soo saaray adeenadu wax la inagu gumaysanay waa inta waxa la inagu gumaysanayo waa dhulka waxa ka soo baxaya umbaade la inagu gumaystaa inaguna dhulka baaxa weyn baa leenahay ka khayraad badan badiba buuxa adigu waa dareemaysaan waxa aan meeshaan ka imanayo marka waxay ahayd rajo wanaagsan oo dhul dhan oo diihan dhalinyaradeedu fara badan tahay oo dhalinyaradu fara badan wax soo bartay nabadda oo kale tusaale oo kale waxa weeye qayb weyn waxa ka dhalinyaradu marka ay wax soo bartaan oo jaamacada aadaan secondary ka soo baxaan oo jaamacada aadaan oo de sanad walba ku dhawaad 5,000 ilaa 10,000 oo dhalinyaro ay soo baxayso waxa nabadda si xoojinaya inay nabaddu sii waarto waxa kamid waxa weeye dhalinyaradaasi markuu secondary high school iyo ka soo baxo jaamacad galo de richu yeelanaya qoys buu rabaa mustaqbal buu rabaa dib qorigu ma qaadanayo ma fududeyn inuu qori qaato si kastoo maanta siyaasiyiinta isku dayaan inay bulshada madaxa isu geliyaan inay suurtagelayso ma u maleynayo dabcan waxay ka suurtagelaysaa dadka miyiga ku nool hubka wili haysta ayay ka suurtagelaysaa laakiin dhalinyarada magaalooyinka ku nool maanta TikTok iyo Facebook iyo Instagram iyo YouTube ka ku jira waxa bartay caalamka halka u socda arkaya riyooyin kale doonaya guryo iyo reero mustaqbal iyo lifestyle ka fikiraya way adag tahay mid rajooyinka ii muuqday bay kamid ahayd runtii keenaya noo sababaya yani in dhul masaxaynta la eegnaad marto haddana aad arki weydo wax khalaasa iyo dib iyo dagaal aad arki weydo rajada kale muuqata waxay dhulkeenu marka laga soo tago diihanaanta dhuleed waxa yaala baahiyo fara badan iyo fursado ganacsi oo aad u fara badan baad arkaysaa marka dhulka iyo beeraha laga soo tago meel kasta oo aragto fursad ganacsi baa ka banaan everything wax walba way diihan tahay marka taana rajo weyn bay iyaduna ahayd oo suuq ballaaran oo baaxad leh oo haddii loo jeesto wax laga soo saari karayo warshado haday noqoto ganacsiyada yaryar baahiyaha bulshada asaasiga ay qabaan mid waliba waxa weeye baahi weyn baa taalay oo fursad ganacsina dabcan baahidu meel kasta baahi taalo iyo demand u yaalo fursad ganacsi baa ku jirta taana way muuqato dadka maanta galbeedka jooga ilaahay dhaqaalaha u dhiibay inay dhulkii ku laabtaan oo fursadaha ganacsiga ay ka faa'iideystaan akhiiran waxaan kusoo gabagabeynaya marba muuqaalka inuu dheeraado bulshada Soomaalida waxa weeye bulsho wali dhaqankii wanaagsanaa ee martisoorka iyo gobonimada iyo soo dhaweynta wali ay ka jirto bulshada Soomaalida aad bay isku dhaqan dhowdahay dhulka sida u dheer from Dirdhabo ilaa Boosaaso ilaa Baydhabo ilaa Gaarisa aan tagnay aan marnay inta u dhaxaysa bulshooyinka wax kala dhaqan oo fara badan waad arkaysaa meelo dhaqankii aad ugu sii wali hore ugu sii xoogan yahay sida Jigjiga oo kale Buuram oo kale Baydhabo oo kale Gaariso oo kale dhaqankii Soomaalidu hore mooda aad inuu wali ugu sii maaragtay u sii haystaan halka magaalooyinka kale waaweyn aad mooda aad inay maaragtay dhaqankii dunida hawlamada iyo ooda furanka dunida ka jira inay saameyn weyn iyo raadin badan ay ku yeelatay dabcan Buuram magaalooyinka weyn bay kamid tahay iyo Baydhabo iyo laakiin little bit waxa moodaa in dhaqankii hore xoogaa inay wax badan ku sii yara dambeeyaan muuqaalka liiga ma goyon kareyno waxyaabaha kale muuqan waxa kamid ah bi'ooyinka environmentiga bi'ada kala duwanaanta dhulka sida uu yahay iyo bulshada sida uu saameynayso waxyaabaha soo baxay bay kamid ahay oo Soomaalidu markasto dhulka beeraha iyo beer qodotada soo dhawaato waa markasto bulshadu ay qabowdahay ee degan tahay markasto dhulka dhagaxa iyo cimiladu ay aad u kakan tahay timaadana waa markasto bulshadu ka qaylo iyo maaragtay sawaxan iyo firfircooni iyo aad arkayso ay ku soo baxayso salo kale inta markaan soo mareynay Jigjiga ilaa iyo laga soo gaaray duleedka Hargeysa dadku waa dad qabow dhul beera ah dadku aad u qabow yihiin dadku hoonna ku wada leeyihiin aad u qurux badan bay ahayd marka sida aad u soo dhaqaaqdo aad soo gaadho Berbera ilaa iyo Gaalkacyo inkastoo kala duwan yihiin meelaha qaar aad arkayso kala duwanaan fara badan aad arkayso laakiin haddana waxaad arkaysaa in dhulku aad u kakan yahay bulshaduna
ay tahay bulsho dhiiran oo dareenkeeda cabiraysa. Waxyaabaha cajiibka waxaa ahayd magaalooyinka ugu kulul ismaanan weydiin jirin berigii hore dadku Booramo ay dhahdo Berbero oo kale iyo Boosaaso oo kale waa dhul aad deegaankiisu aad u kulul yahay. Haddana waxa cajiib waxay markan meelihii waxay ahayd eventyadan ku qabanay su'aalaha ugu adagna la weydiinayay. Allahu musta'an dadku ay very expressive dareenkooda aad u cabirayeen oo dad dhiiran oo dareenkooda cabiraya ay ahaayeen. Waad is weydiinaysaa marka anthropology xagga laga imaanayo iyo sociology laga imaanayo waad is weydiinaysaa su'aalaha maxaa kala duwaya maxaa keenaya dadna inay halkan qabow yihiin waxyaabo badan baad ku magacaabi karaysaan oo kala duwan laakiin mid kamid waxaan u aaneynaya cimilada oo kulul darteed qofka hadduu aamusnaado in ay dee cabursanaanta faraha badan iyo kuleelka faraha badan haddii ay isbiirsadaan in dee dadku aanay hayn karin marka inay dareenkooda cabiraan oo dad dareenkooda cabira oo dhiiran inay noqdaan I think cimilada keenaysa isleedahay tan waxa weeye waa observation good oo bulshada yani deegaamada kala duwan dadku siday u sameeyaan aan ka eegin markasta culimadu ay ku badan tahay iyo deegaamada sida Laascaanood oo kale Gaariso oo kale meelaha ay culimadu ku badan tahay waxaad arkaysaa bulshadu inay more xagga dacwada iyo xijaabku inuu ku badan yahay Hargeysa lafteedu dib Hargeysa waa magaalo weyn isku ma jirto waxyaabo kala duwan oo fara badan ay runtii ii soo baxayay intii aan deegaamada Soomaalida aan maraynay maxaa casharoon ka bartay insha Allah muuqaal kale isku dayay safar dheer oo wuxuu ahaa bilya badh kamid aan deegaamada Soomaalida ku maraynay bilya badhna aan dalalka kale iyo Europe inta badan ay ahayd in ku maraynay insha Allah Qurtubiya qarnaata oo tagnayna muuqaal baan ka soo wadnaa hadii Ilaahay yiraahdo oo aan kaga sheekeyn doono dhulkii taariikhiga ahaa ee muslimiintu ay lahaayeen ay ka talin jireen 800 sano ku dhawaad iyo raadkii iyo quruxda badnaa ay kaga tageen inaas haddaan fursado kala u helo muuqaalo kale insha Allah ka duubi doonaa si in depth aan u geli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo idinkuna waan rajeynayaa feedback-giina maxaa arrimaha aad leedihiin way ka jiraan maxaa is leedihiin observation aniga gaar igu ahaa weeyaan waxaad ku kordhinaysaa inaad insha Allah xagga hoose muuqaalka nagula wadaagtaan aad u mahadsantihiin jazakumullahu khairan inta maan ku gaajaysan yahay guuliga wali aqliga calkiito soo fikira nolosha tulmoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.